عمر بن الخطاب كيلومتر 5 مقالة مقديشو أنا خطيب المسجد كان ما شو صار بحنا ثلاث جنازة هنا كنت كنا مدحوين محمد مرسي oo dhawaan geeriyooday waxa taas keenay waxay tahay isagoo aan cadaalad helin oo xabsiga yaani dhibaatadii loo geysay u geeriyooday kadibna janaazadii uu mudnaa aan ka helin wadankiisii caalamka islaamka ayaa waxaan la wadaagaynaa ducada maanta jumcada lagu baaqay in yaani loogu soo duceeyo taas oo ku tusaysa yaani wanaagiisa iyo qiimihiisa waxaan wadada oo isu soo baxay cid yaani ama la soo kireeyay ama wax loo kala loo soo sheegay ma aha waxay ka qeyroodeen gardarrada dhacday iyo dulmiga ayaga oo ducadii la garab istaagan janaazo wadankiisa uu ku waayay waxa ummadda islaamka oo dhan ayaa janaazo u sameynaysa annaga oo kamid ah ummadda islaamka oo shacbiga Soomaaliyeed qayb kamid ah ayaa ilaahay ha u naxariisto ummadda islaamka guud ahaan waxyaabaha dhibaatada haysata waa kiristaanimo oo ummadihii korka ka saaran taas oo keentay inay dadka saa u dhintaan taas oo isku xiriyo oo ummaddu ayadu waxeeda ay yeelato xor noqoto arrintaas ay shucuurtu iyo u dagaalamayaan oo ay rabaan inay ummadooda xor ku ahaadaan qofkii saas loo diidana waxa uu ka dooranayaa intii uu dul uu ku jiri lahaa inuu si yaani adkaysi leh ilaahay agtiisana cadaalad u ka raadinayo inuu geeriyoodo Allahu naxariis madaxweynaha shacabka Soomaaliyeed ka soo qayb galayna waan u mahadcelinaynaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو ما سنتين شكرا جزيلا وفسحتين على خاطر